Assalaamu calaykum. Waa aniga iyo mar kale qadari naftaada. Saxaabta waan kala mashquulnay, waqti badanna waan iswaynay. Isku soo laabasho wacan, weji furan iyo gacmo furan. Insha Allah maanta waxaa rabaa inaan ila wadaago mango nara. Alaabtan waa alaab af Meksikaanka ay khatar ku yihiin. Agteenana aad ayay dadku u xiiseeyaan. Bal insha Allah aan is aragno, waxaana rajaynayaa inaad iga faa'iidaysataan. Halkan waxaan ku jarjartay cambihii freshka. 2 xabo cambe ayaan jarjartay. Qaandada ayaan saas u dhex marinayaa si wixii dhexda ku jiro oo u soo daato. Kadib jeexlin ayaan soo qaatay. Jeexdii liinta ayaan miirtay. Qalaadooyinka waxa lagu shiito ayaan halkan ku haystaa. Qalaadadii ayaa waxaa ku shubtay 1 koob oo biyo ah. Biyihii kadib waxaan u dib marinayaa cambahan. Waa cambo oo maxay ahayd faranjeerka ku jiro oo sidaas lagu soo gaday. Frozen ayaa la dhahaa. Maxay ahayd 400 gram oo cambahaas ayaad u baahan tahay. Haddii aad fresh haysatane waa inaad baraf ku shiido. Cambihii kadib waxaa u dul mariyay sokor. Sida iga barateena insha Allah hoos ayaan igu soo qorayaa qoraalka. Kadib waan isku shiidayaa. Insha Allah markaan isku shiido saxan ayaan soo qaatay. Spice-gan waxaa la dhahaa tajin. Saas ayaan jeclahay. Meeshan wuuba ku qoran yahay, waa aragteen. Kanna maxaa la dhahaa jemoy. Bisbaas yar ayaa ku jiro. Furuudka dhan waa ku cuni kartaan. Labadan spice-na waxaa ka soo gatay dukaamada oo Meksikaanka ah. Waa ka helaysaa qasab waaye, ayaga kama waynaysid. Kii budada ahay ayaan saxan soo qaatay. Sidaas ayaan ugu dul shubay. Kadib hadda waxaa sameynayaa bakeerigii aan cabitaanka ku shuban lahay ayaan soo qabsaday. Waxaa saas ugu waxaynayaa kii u ekaay raqiga shiidnay camal ama bisbaaskii. Hadda waxaan sameynayaa koobka ayaan geesaha uga shubayaa kii raqiga camal u ekaay. Kadib waxaan soo qabanaa kii budada ahay. Koobka dhexdiisa ayaan wax yar ku shubayaa. Wax yar waxaan soo qaadayaa cambihii iyo jarjarnay. Koobka ayaad ku dhex shubaysaa. Kadib markaad koobka ku dhex shubto waxaa u dib marinaysaa maangihii aad soo shiidatay, cambihii aad soo shiidatay. Maasha Allah, sidaas ayuu ku soo baxay. Haddii aadan haysanin cambaha kan barafka ah, waxaa samayn kartaa baraf ayaad ku shiidanaysaa cambihii oo fresh ah. Alaabtii raqiga camal aheyd ayaa haddana ku kor shubaysaa. Kadib markaad ku kor shubto wax yar kii budada ahay. Kadib haddana waxaa u dib marinaysaa cambihii jarjarnay. Kii raqiga ah. Raqigii ayaa haddana ku dul shubaysaa. Kadibna budadii. Markaad sidaas samayso waxaa ku daraysaa oo aniga aan hadda sida hore u soo aragteen aan ka taagay raqiga. Dhinaca raqiga laga sameeyay. Maasha Allah, aad ayaan koobabka u buubuuxiyay. Waa u jeedaan siduu u daadaadanayo. Marka waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen. Dhinaca raqiga iyo labada spice oo isticmaalay waxaan ka soo gaday dukaanka Meksikaanka. Idinkana haddaa aadaan waad ka heli doontaan insha Allah. Like-ta, share-ka iyo subscribe-kane dhinaciina waaye. Asxaabta insha Allah waxaa rajaynayaa videogan inaad ka hesheen.